guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa waxa ay maanta soo saareen jadwalka ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee xisbiyada qaranka waxaana sidaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland isla markaana uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha guddigaasi Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac. guddiga doorashooyinka ayaa go'aamiyay in ololaha doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanku socdo muddo 6 maalmood oo quraata oo ka bilaabanta 23 bisha May kuna eeg 28 bisha May waxaana xisbi walba la siiyay muddo 2 maalmood ah. guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale xisbiyada qaranka iyo musharaxiintooda uga digay isla markaana u soo jeediyay inay ka fogaadaan talaabooyinka ka reeban ololaha ee ku cad xeer lambar 19/2020 qodobkiisa 9aad farqadiisa 1aad 2aad iyo qodobka 29aad farqadiisa 3aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 19/2020. geesta kale guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in ololaha ay ka reeban tahay in la isku sameeyo ama la isku dhajiyo astaamaha xisbiyada qaranka cid kastoo ay ku cadaato arrimaha ka reeban ololaha iyo anshaxa doorashada laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. qoraalka guddiga doorashooyinka ayaa lagu yidhi komishinka doorashooyinka qaranku isaga oo raacaya qodobka 88aad farqadiisa 1aad 2aad iyo 3aad iyo qodobka 89aad farqadiisa 1aad 2aad iyo 3aad iyo qodobka 29aad farqadiisa 1aad 2aad iyo 3aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 19/2020 waxa uu soo saarayaa jadwalka ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. jadwalkuna waxa uu u dhigan yahay sida tan: xisbiga u cid waqtiga uu leeyahay ololaha oo lagu daafuraya waxa weeye 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 23 bisha shanaad 2021. isu soo bax ballaaran oo khayryada iyo fagaarayaasha ah ayuu samayn doonaa xisbiga kulmiye 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 24 bisha shanaad 2021. isu soo bax ballaaran oo khayryada ilaa fagaarayaasha ah ayuu samayn doonaa xisbiga wadani 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 25 bisha shanaad 2021. isu soo bax ballaaran oo khayryada iyo fagaarayaasha ah ayuu samayn doonaa xisbiga u cid 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 26 bisha shanaad 2021. isu soo bax ku kooban xafiisyada musharaxiinta iyo xarumaha xisbiyada oo kaliya ayuu samayn doonaa kulmiye 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 27 bisha shanaad 2021. isu soo bax ku kooban xafiisyada musharaxiinta iyo xarumaha xisbiyada oo kaliya ayuu samayn doonaa xisbiga wadani 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 28 bisha shanaad 2021. isu soo bax ku kooban xafiisyada musharaxiinta iyo xarumaha xisbiyada oo kaliya ayuu samayn doonaa. war-saxaafadeedka guddiga doorashooyinka Somaliland oo sii socday waxaa lagu yidhi komishinka doorashooyinka qaranku isaga oo raacaya xeer lambar 19/2020 wuxuu xisbiyada qaranka iyo musharaxiintooda ku wargelinayaa in ay ka fogaadaan tallaabooyinka ka reeban ololaha ee ku cad xeer lambar 19/2020 qodobkiisa 9aad farqadiisa 1aad iyo 2aad iyo qodobka 29aad farqadiisa 3aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 19/2020. fiiro gaar ah waxaa reeban in la isku sameeyo ama la isku dhajiyo astaamaha xisbiyada qaranka cid kasta oo ay ku cadaato arrimaha ka reeban ololaha doorashada iyo anshaxa wuxuu guddiga doorashooyinku ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. allah mahadle waxaa ku saxraa qoraalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac. cabdifataax Ismaaciil Bursal Gobanimo TV.